kulan wacan daawada meel walba aad joogto kusoo dhawaaw tusmada filmada iyo arrimaha dhacdooyinka iyo dib u milicsiga u baahan oo hadaan oo kala idin soo gudbino haddaad warbixinadan ka heshaan la wadaaga asxaabtiina wad ku maasantiin alaabasad muuqaaladan aad u daawataan warbixintana waxaan ku eegi doonaa xidigta Taabu iyo sababta ee uu isticmaal weysay magaceeda oo dhameystiran kaliya xidigtan waxaad ku aragtaa in lagu yeero magaca Taabu haddaba warbixinadaas iyo sababta ka dambeysay ayaan isla eegi doonaa xidigta Taabu ayaa markaan waxa uu ahaa sanad cajiib ah kaliya maahan Bollywood ka sidoo kale filmada kale ka soo muuqatay ee qaybta koonfurta ayaa wuxuu noqday filmo lagu siiyay doorarkeedan caadiga ahaynba xidigtan laga soo bilaabo filmadeeda doorarka ee filmada ganacsi ahaan guuleystay ayaa xidigtan waxa loo garan ogyahay inay tahay mid leh jalin saraba xidigtan ayaa markaan waxa lagu amaanay filmkada laba door ee kaga soo muuqatay Bollywood ka ee blockbuster ku weyn noqday sanadkan ee Bulbulanyatu kaas oo laba door ee ku jilaysa xidigtan ayaa markaan waxa u diyaarsan sidoo kale xayeysiin u sameynaysa filmkeeda caanka ku ah khiyaanada iyo argoosiga ee Drishamtu kaas oo ajeed ee Afghan ay la wadaba xidigtan ayaa waxa jir kala hor wareysi ay bixisay kaas oo markaan dib loo soo rogaal celiyo oo xidigtan ay kaga heshay arrimo la xiriira qoyskeeda iyo sababta ay san xidigtan u dhameystir weysay magaceeda oo kaliya ay ugu soo koobtaba Taabu markaan ka hadlano Taabu ayaa waxa ay kamid tahay xidig marka loo fiiriyo aan si badan loogu hadlin arrimaha la xiriira nolosheeda khaaska ah si kastaba xidigtan ayaa waxa kala hor ka hadashay arrimo la xiriira qoyskeedaba waxaan sidoo kale xidigtan hooyadeeda iyo sidoo kale ay aabaheeda yihiin kuwa kala hareen xidigtan ayaana arintaas waxay ka sheegtay showga caanka ah ama barnaamijka caanka ah ee Ransom Voice kaas oo qabto Sami Garawal xidigtan ayaa inta uu socdo barnaamijka waxay kaga hadashay arrimo la xiriira xidigta sababa aysan u isticmaal weysay magaceeda runta kaas oo ah Tabassum Fatima Hashmi ayaa wuxuu yahay magaca aabaheeda surname ku ah xidigtan ayaa waxay sheegtay in aysan rabinba in ay magacaasi isticmaasho waxay sheegtay inaysan ku fikrinba inuu muhiim u yahay in magacaasi isticmaasho ama magaca aabaheedana isticmaasho waxay sheegtay in alaab ay u isticmaasho magaca Tabassum Fatima kaas oo sheegtay in xilliga iskuulka ay dhiga jirtay magacaasi uu u qornaa iskuulka waxay sheegtay in Fatima ay u adeegsanayso magaceeda labaad oo u dhigan magaca aabaheedba haatan ayaa xidigta waxa ay sheegtay inaysan waxba xasuusaysan ka haysan aabaheeda kaliya sheegtay in walaasheeda mar ay jirtay inay la kulantay aabaheedaba waxay sheegtay in aysan rabinba in ay dareento ama ay rabto la kulankiisaba manaxiisana ay sheegtay waxyaabo asi u quseeyba waxaana sidoo kale sheegtay inay ku faraxsan tahay sida ay maanta ay tahay waxaana sheegtay in ay markaan ay tahay qof koriimaha oo weynaataba waxaana sheegtay xidigtan iyada kaliya ee nolosheeda ee u saldhigtay waxaana intaas ay raacisay xidigta inay tahay mid haatan nolosheeda ku faraxsanba Drishamtu ayaa mid wuxuu yahay xidigtan Taabu ee door muhiim ah filmkaas ku leedahay kaas oo ay ku jeelayso mid ciidan ah oo wiilkeeda ay dilayaan qoyska ajeed Afghan kuwaas oo gabar kamid ah oo ajeed oo shukaansanayay taas oo sidoo kale xilli ay ku dayay arrimo farxumeena ee sidaas lagu dilayay filmkan ay qaybtiisa koowaad waxa la daawaday 2015 filmkaas ay hogaamiyo waxa ka ah ajeed Afghan Ishita Gupta Shriya Saran kuwaas oo filmka hogaaminta ka qaybta labaad markaan waxa lagu soo diray xidiga sheekana filmkan ay director waxa ka Abhishek Pathak filmkan ay waxa lagu wadaa in la daawado November 18keeda inta aan ku soo xirina muuqaalkan aan ku eegeen xididka Taabu iyo sababaha ay u isticmaal weysay magaceeda oo dhameystiranba haddaad warbixintan ka heshay la wadaaga asxaabtada waad ku maasantiin alaabasad muuqaaladan daawataan kan kiisa xigo nabadgelyo